cabaadkan iyo qayladan ka yeeraysa inankan yar ee 2 jirka ah ee ku nool gudaha magaaladan Boorama waxaa sababay xanuun xoogan oo xilligan haysta kaasoo afka uu kaga soo baxay hilib aad u weyn oo ku dhibaya inaad u soo dhawaato isla markaana leh ur ku diidaya inaad daqiiqada ag joogto. ururka samafalka Tawfiiq ee ka howlgala gobolka Nowdal ayaa maanta bulshada islaamka gaar ahaan ummadda Soomaalida waxa uu soo bandhigay xanuunka haysta inankan 2 jirka ah oo dhaqaatiirta ka howlgasha Somaliland ay xaqiijiyeen inaan gudaha dalka waxba loogu qaban karin isla markaana uu u baahan yahay in la geeyo cusbitaalada caalamiga gaar ahaan kuwa la jaarka Somaliland ee dalalka Itoobiya iyo Kenya si qaliin loogu sameeyo hilibka afka kaga soo baxay. hooyada dhashay cunugan yar ayaa waxa ay sharaxaysaa qaabka uu xanuunsanayo iyo xilligii ay ku aragtay xanuunkan. waxyaro naqana way hayd oo fiix bay ku sheegan dhaqaatiirtu isagoo yaba maqal dhakhtarka oo dhan baa geeyay walba geey wala garan waaye adu mar dambe bay markii dambe yiraahdeen waa fiix marka waxay u yiraahdeen Nairobi na deetaan waan way waska haystay iska ladnaado iska caafimaday uu kacay buurtaas iska leeyahay muddo dhowr bilood oo kala hadana ayaa tan dib loogu soo noqday markii lagu soo noqday ayuu wixii cishada ka dambaysa soo kordhay dhakhtarkan ku celiyay waxay u yiraahdeen ama Nairobi ma dhakhtar weyn oo geesan weyn waxba ma qaban kareen wayna soo socotaa hadii aad ka gaar weydid bay gulahay marka cishadii xataa ay gudaan san uu ka yaraa marka inta cishada ka dambaysa uu si kordhay oo si weynaanay. sidoo kale gudoomiyaha ururka samafalka ee Tawfiiq Marwo Basre Jirda Shiil oo iyaduna madashan goobjoog ka ahayd ayaa waxa ay baaqayladaan u dirtay cid kasta oo islaam ah gaar ahaan waalidiinta Soomaalida. waxaan halkan ku arkaynaa ilmo yar oo magaciisa Maxamed la yiraahdo oo hooyadii ay nooga soo waratay xaaladii hore uu soo maray maantana aan arkayna xaaladda uu ku jiro. runtii waxaan leeyahay hooyo wal oo wax dhashay oo wax qaaday waxaan u maleynayaa inay dareemayso dhibaatada walaasheen haysata. waxaan idin leenahay ilmaha yar geerina maaha nololna maaha. runtii marka la eego shaashada ayaad ka maqli doontaan inaanu even naqas qaadan karaynin. marka waxaan idin leenahay hooyo wal oo garanaysa afkaan ku hadlaynaa Soomaaliyeed oo waliba u sii gudbin karta hooyooyinka kale ee aan afkeena garanaynin iyadoo ay afgaranayso. waxaan ilaahay dartii idinka codsanaynaa inaad si degdeg ah ilmaha yar ugu soo jawaabtaan oo wixii dhaqaale ah ee lagu geyn lahaa dhakhtarada ama Addis ha noqoto ama Nairobi ha noqoto waa labada meelood ee lagu yiri gee qofka hooyadii waxay u haysaana ma jirto. waxaan idin leenahay walaalahayow ilmaha yar even ma ag fadhii karaysid waxa weeyaan afkii urta ka soo baxaysa afkiisa waayo cilmi ay ku nadiifisa midna uma hayso mana neefsan kara ilmihiyo idinka ka marxaatiya shaashadaad ka arki doontaan yani waa af ilaahay abuuray haddana uu daboolay isaga cilmigiisa. waxaan idin leenahay ilaahay dartii ugu soo naxariista oo si degdeg ah ugu soo hagaajiya nambarada aad ka arki doontaan shaashada insha Allah Rahmaan iyo ururka Tawfiiq ugu soo hagaajiya wixii aad gargaar degdeg ah u soo qabanaysaan. عبد الفتاح أحمد هاد وناق نيوز مقالة بورما.